sanad baroordiiq rasmi ah ayaa lagu soo gabagabeeyey dalka Thailand xaflad lagu aasayo boqorkii dalkaasi ee geeriyooday sanadkii hore isagoo ahaa 88 jir waxaana uu talinayay in ka badan 70 sanadood waxaanu la soconnay aaska loo sameynayo iyadoo goob looga dhisay meel u dhow qasriga Grand Palace ee ku yaala magaalada Bangkok. Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa eegaya aaska boqorka. teendhooyin aad loo qurxiyay ayaa ka muuqda garoonka qaybta taariikhdiga ee boqortooyada ee Bangkok. kharash balama eegin markii loo diyaar garoobayay wadacaada boqorka oo dalka xukumayay 70 sanadood oo la yiraahdo isaga dalkan casriga abuuray. aaska boqortooyadu waa mid ku salaysan Hinduuga iyo Buudhiska iyo waxyaabo kale. boqor Vimabol waxa loo arkaa inuu ka soo jeedo ilaahyadii Hinduuga loona arko inuu ku noqonayo jannadoodii. siyaaradan waxaa lagu saleeyay koomkan mayd gubistanna waxaa lagu matalayaa buurtan barakaysan buurta Meru. ducadan waxaanu ku isticmaalnaa biyo barakaysan biyuhu waxay ku jiraan qolof badeed waxaana lagu cashariyaa gaari faraska boqorka iyo qalabka kale. boqolaal kuwa ugu fiican farshaxanka qaranka ayaa ka soo qayb galaya aaska. mid kasta waxa ay leedahay calaamado muhiima. distiga uu ku jiro dambaskii boqorku waxa lagu qaadi doonaa gaari faras 14 tan oo jiray ilaa 200 sanadood. qaybta ugu dambaysa ee wadacaada boqorka waxa ay tahay mid farshaxan ahaan aad looga shaqeeyay oo la sheegay in uu u qalmo ninkii dalka looga haystay taariikh ahaan ilaahooda.